waxaa maanta lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kulan lagu naaqashayay siyaasadda heer qaran ee arrimaha dhulka oo ka qayb qaadanayaan dhammaan laamaha dawladda ee gobolka Togdheer. kulankan oo soo qaban qaabiyay wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Somaliland ayaa waxaa lagu soo bandhigay dhibaatooyinka badan ee ka dhashay inta badan dhulka. agaasimaha waaxda dhulka iyo guryaha ee wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Engineer Maxamed Maal Ali ayaa ka waramay dhibaatada uu leeyahay dhulka iyo khilaafka, waxaana uu xusay in loo baahan yahay in la dhaqal geliyo siyaasadda heer qaran ee dhulka. haddaynu Somaliland ka dabanahay sharci baynu samaynay la yidhaahdo law number 17. sharciga law number 17 wuxuu support garaynayaa ama la qaatay kii 79-83 ee qorshayntana hawlaha guud yeelato qaybintana ay dawladda hoose yeelato ilaa imika ama la policy ha noqdo ama law number 17 ha noqdo wuxuu xidhiidh leeyahay ka 1979 ilaa 1982. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan iyo maayir ku-xigeenka degmada Burco Axmed Cabdi Falay ayaa xusay in la dhaqal geliyo siyaasadda dhulka. walaa waxaysan inay xilligan yaraatay khilaafka dhulka ee gobolkani, balse si kastaba ha ahaatee kulankan lagu lafagurayay siyaasadda heer qaran ee dhulka ayaa waxa ay noqonayaa kii ugu horreeyay ee noociisa ee lagu qabto magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Rasaaq Faarax Cabdilaahi, Cabdirasaaq Nagruma, shabakada caalamiga ah ee Burco Online, xarunta gobolka Togdheer, Burco.